hamuugaan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. waxaad ka heli doontaa wax yar oo qurux badan oo fudud u samaysa si simple ah. waxaad ka heli doontaa ama cunto dhadhan leh ama tayo leh ku kori oo ku kobci ilmahaaga wax borotiin, nafaqo iyo fitamiin labadaba leh. iska jir oo iska ogow waxa suuqa laga keeno. nala fiirso oo nala dhamayso fiidiyowga waxaanu ka sameynay iyo waxaan ka hagaajiyay, waxaan ku daray iyo waxay dhadhamayso. jawaabtaada waxaan ka sugi doonaa insha Allah bismillaahi kariim commentiga ku reeb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كل مرة بيوتي عن كوكين هذا يعني دين سلامي صباح ونعسنا يعني من الله ساكا وصباح سبتيا سبت سرقد قاقضي وحنا دين رجعني لما أنتي ملك استجوكتان بين عاصمة قبتان يودا ونعسنتهين هلكا وحنكو هيا وهاف سبقة لبا حبو يوغت كسميسان يوغت خضرة دلي لبا حبو بيضة حبد سكر فانيلا أما فانيلا إياها في كاس سكرتة. اللهم صل على محمد. قال بدني مساكي سووا دقيننا وحبا أدي الله إذمه انت هاف كذا عانانا ونكسر دونا وده سعد وناكسن. أصحابي وكون وحي إني ما كان سكسر شيدي يوغت كي عانيه سبيد دي بيت كي وحي بعد سداس أي صباحين وبيهاس. اللهم صل على محمد. دقيقة أيام كسر شبان دونا إسلا سعد وناكسن. waxaan samaysanaa wax yar oo ah pancake ama mulawax qof waliba sidoo u yaqaan ama umula ama kidib insha Allah intaas aan isku soo walaaqaya. kadibna waxaan la aadi doonaa dabka iyo maqliga ama daawaha qof waliba sidoo u yaqaan isla socod wanaagsan insha Allah. كسر مرو بيوتي إنا قصة تيرية إنت إنا هذا يناصر لما يسترى هراء يناصر وضع نحن نلا يا صحابي يا قولي النجاية على واحد صواب بحضر وإلى أكيد إنسان سويت تشارية يوقف كان كنت رأيه وكسر مسنا هذا هذا خضرات بكون شرطين وهاي النتور يوقف عادية aad ayuu u macaan yahay dhadhan gaar ah ayuu u sameyn doonaa. qofkii hore u soo samaystayna wuu soo samaystayba kii aan soo samaysanna bal aniga saaka hayga soo tijaabiyo alaabtaas waa alaaban inaba caadi ahaan. anigu sidii mulawaxa kama rabi pancake camal ayaan ka rabaa. macaan badan kuma daraayo waayo dusha ayaan hibin kaga darayaa isla socod wanaagsan saan u soo samaysto. صحابي سبسكرايب كا لايك تا كومنتي كا شير تا وحقنا waxaan idin leeyahay ka maqnaanina hamuugaanina alaabooyin badan ayaa soo socda. waxaan ilaawan hadda dusha kaga daray waa finiilihu udgoon yar ayuu u sameynayaa. anigu kuma darsanayo fixiso ama baking kuma darayo sidiisaas ayaan ku samaysan doonaa isla socod wanaagsan. أصحابي مقلقي إني أيام دبك ينوص صاري ما دام المقلقي دبك ينوص صاري هل كم حنكون هنتا ووحير أسليد أولي للفأة أنت أيام ساعة ومرنا يا مقلقة إسلا سعد وناكسن. وكاس أصحابي وتح بدي إني أنكو شوي sidaas ayay maraysaa processkaas ayay maraysaa. sidaas ayaan dayn doonaa insha Allah isla socod wanaagsan. asxaabi wada aragtaan say soo baxday wada aragtaan waan rogayaa dhabarkeediina wakaas saliid ma marinin subagna ma marinin isla socod wanaagsan. asxaabi wajigeedina sidan ayuu soo baxay hadii la aragtaan xaqi dhabarkiina waka wajigeena wakaas isla socod wanaagsan. sidaas ayaan asxaabi xabadii labaadna wata kor iyo hoos sidaas soo baxday qurux
dufan male subag dhan male intii aan ku qasay mooyaane waxaan jeclaan lahaa waa cunto caafimaad leh waa cunto borotiin oo carruurta u fiican laga soo tuuro asxaabay saas soo baxay mulawaxeeni bankeegeeni qof waliba siduu u yaqaano wakaas inaba caadi maaha waa la yaabay baan idinku waa la yaabay waan soo diyaarsan doonaa insha Allah blade-kan kusoo diyaarsan doonaa waxaan kusoo darsanayo isla socod wanaagsan asxaabay kan caanahan ayaan ku daro waa ila aragtaan kan kalena waxaan ku dari doonaa waa caramel sado aragtaan waxa loogu talagalay waxyaabaha sida pancake-ga mulawaxa iyo guba gaaladu ama cadaankuba way sameystaan mulawax laakiin waxay dhahaan crib waxaan isticmaalayaa caramelka ila arkaysaan caramelkan saa u isticmaali doonaa waa madow ayaan maleynayaa halkaas iftiinka ma hayo wakaas caramelkaasaan saa u marin doonaa labada group weeyaan reerku halkan waxaa ii saaran glass orange koob shaaha iyo koob caano ah intaas ayaa lagu cuni doonaa insha Allah bismillaahi kariim waa alaab yar oo fudud aad u macaan aad u nafaqo badan oo borotiin badan waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan intiina hore u samaysatay u tijaabisayna Allah idin daaweeyaan leeyahay inta cusub ee maanta daawan doonta ama tijaabin doontana waxaan leeyahay waa arki doontaan inaad ka caajisina aad ayay u macaan tahay aad ayay u nafaqo badan tahay qofkii aan yogurt ka heli karin wuu iska deyn karaa ay yogurt aad adigu jeceshahay oo khudradda ku jirta ayaad ku darsan kartaa kabaleenka ayaad ku darsan kartaa kulli anigu markaa kii yaalay ayuun baan ku darsaday insha Allah waxaan idin leeyahay asxaabta reer Marwa Beauty aan aadka u jecelahay subscribe like comment waa xaqiina one love baan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq